السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaad asxaabta meel kastoo dunida ka joogtiin walaalkeeni Maxamed Ali Ahmed halkan naga socodin waa Xasile Media. Marka hore muuqaalkani like saar dad far badan u gaaro hadii nagu cusubtihiin subscribe noo saar aad iyo aad u mahadsantihiin. Marabta inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ducada ka aqbalo. Marabta in lagu furo todobada sameed waxaa rabaa inaan kula wadaago duco ka sugnaatay nabiga sallallahu alayhi wasallam. Ducadaani hadii aad ka duceysatid Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu kaafiyeeyaa kurbada ku haysata. Sidoo kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa waliba aad weydiisatid waa ku siin doona. Waa duco aad tajiibu ah. ducadaani waxa aad u abaalay nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Abdullah ibn Umar wuxuu yiri maalmaha kamida ayaan ku tukaday nabiga sallallahu alayhi wasallam agtiisa aniga oo salaadayadii ku jira ayaan ku duceystay ducadaani. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waa kuma ninku ku duceystay ducadaani. Markaas ayaan u sheegay in aan aniga ahay. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri markii aad akhrisay ducadaani Ilaahay subhanahu wa ta'ala todobada samo ayuu ku furay. macnaheedu waxay tahay ducadaani waxay furo u tahay wax waliba aad rabtid inaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiisatid. qofka haduu rabo inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala baahidiisii u sheegto waa inuu marka hore ducadaani ku bilaaba. ducadaani markaad akhrisatid Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku furayaa todobada samadood. kadib Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax waliba waa weydiisanaysaa. ducadaani waxay oranaysaa sadatan Allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. عبد الله بن عمر وهو يري maalintaas wixii ka dambeeyay salaad waliba aan tukado ducadaani ayaan ku duceysan jiray. waa duco aad ajiib ah. waxa amaanay nabigeeni Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. hadiiba aad rabtid inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ducadaadii ka aqbalo, hadiiba aad rabtid inaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala baahidaadii u sheegato, waxa laga rabaa inaad ducadaani marka hore aad ku si Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax waliba ku siiyo. maxay dad fara badan jeclaan lahaayeen inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala kurbada ka qaado. maxay dad fara badan jeclaan lahaayeen inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka aqbalo wax waliba ay u baahan yihiin. ducadaani waa sir lagu furi doono todobada albaab ee samada. hadii aad rabtid inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax waliba ka aqbalo ducadaani aad ugu dadaal. waxa loo baahan yahay dadka muslimiinta inay aad ugu dadaalaan ku xirnaashaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala. qofkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xirnaada, qofkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala baahidiisa u sheegta, qofkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ducadaani wax ku weydiista, Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax waliba waa siinaya. Ilaahay subhanahu wa ta'ala adoomadiisii aad ayuu ugu naxariistaa. balse waxa loo baahan yahay adoomada inay noqdaan kuwo aad ugu xiran Ilaahay subhanahu wa ta'ala, kuwo mar waliba baahidooda u sheegta Ilaahay subhanahu wa ta'ala, kuwo mar waliba jecel inay Ilaahay subhanahu wa ta'ala baahidooda u sheegtaan. Ilaahay subhanahu wa ta'ala hadii aad ku kalsoonaatid oo aad tala saaratid Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax waliba ayuu ku siinaya. marabta inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka arsaaqo meel aad filanaynin ka cabso Ilaahay subhanahu wa ta'ala. sidoo kale aad u bari Ilaahay subhanahu wa ta'ala. qofka inta badan bariya wax waliba waa siinaya. sidoo kale Ilaahay wuxuu ku abaalmarinayaa inuu dambigiisii ka dhaafo, wuxuuna lagu abaalmarinayaa jannada Ilaahay subhanahu wa ta'ala. waa fursad aad qaali ah looga baahan yahay qofka muslimka inuu ka faa'iideysto. Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa loo baahan yahay inaad aad u barisid. qofkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala bariyo magaajoodo. qofkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala gacmaha u taagta murugo iyo isma arkaan. qofkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala gacmaha u taagta dhibaato iyo rafaad waxa la dhaho bahayraata isma arki doonaan. wuxuuna ku noolaanayaa nolol aad u qurux badan. waa markii aad ku dadaashid ku hirnaasha Ilaahay subhanahu wa ta'ala. waa marka aad ilaalisid salaadaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala. waa marka aad ku dadaashid akhrinta Quraanka Kariimka. waa marka aad raacday sunnada nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. waxaad noqonaysaa qof noloshiisii ku tilaabsan doonto horumar aad u weyn. Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaynu weydiisanaynaa inuu nagu arsugo jannadiisii. sidoo kale waxaynu weydiisanaynaa inaynu noqono dad ahlu janna ah, adduunkaanu ku noolaan doono cizo iyo sharaf, aakhirana lagu abaalmarin doono jannadiisii. waxaan rajaynayaa muuqaalkaani inaad ka faa'iideen. waxaan ka codsanayaa muuqaalkaani asxaabtaadii la wadaag, guruubyada ku sheer garay si ay uga faa'iideystaan. waa duco aad qaali ah
كسقناتي نبينا محمد نهريس النبي كله كركي ساعته الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا مرول بآيات الانكرتا وها لغاربا مركات دميس الصلاة انت إلهي سبحانه وتعالى باهدا الشيغنين دعوداني كهرمر وهي كعابينيسا إن لغو فرو تضبط السمدوت إلهي سبحانه وتعالى مركز إلهي سبحانه وتعالى ستوس آيات الحريريسا وحول بن إلهي سبحانه وتعالى وكسينيا ولا ليال وها رجينيا دعوداني إناد كفايدين موغال كاني لايك صار سداد فربادن أقارو هدي نوع عصبتهن سبسكرايب نوصار آت ما سنتين أنت موغال كان موغالي عن كل مدونة سداسيون بتقليو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.